baan ku haysano iima ahayn halkan biyuhu waa in magaalada Madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagan ku iibsanana ma haysano marka ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaasuu u fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaa ku biiliya marka buu nabigu ku yiri bi'nihi bi'aynin fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaasuu yiri may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yiri Uthman bin Affan radiyallahu anhu oo dhakiyaha oo aqli badna oo inshiisu meel dheer wax ka arkayay oo basiiro ilaahay uu siiyay ayaa hadalkii nabiga qalbigiisa ku dhibcay bi'nihi bi'aynil janna il jannada ku taala ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa Uthman baa ninkii u tagoo yiri ceelkaaga haddii laga yiraahdo lacag ku iibi ma iibin lahayd hawaan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham Uthman lacagtii buu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu keenay uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yiri yaa rasuulallah ceelkii bi'ru ruuma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninka loo ballan qaado iska diiday aniga ma lay ballan qaadaya markaa buu nabigu yiri haa markaa buu ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay dhaansadaan buu ceelka hadda tolbiisa waa waqaf hal isticmaalo buu rasuulallah markaa buu nabigu farxay indhaha ayuu nabigu markaa kor u qaado wuxuu yiri Usmaan ilaahu raalli baan ka noqday raalli ka noqo Usmaan maanta laga bilaaba amal dambe haduuna sameynba inta buu jannada ku galay buu rasuulku yiri bi'nihi bi'aynil janna indar garata dadkaas ahaa Soomaaliya ya misas siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu oran indar garata weeyaan oo kontonka sano soo socda isbedelka geeska Afrika ka faalooday dhageysta idaacad inta la soo fariisiyo ya Allah aqliga aakhirada ku tusini waaya aqli ma nolosha dambe aqliga ku jeedin waaya aqli ma aragu haddaad aakhirada ku arki weydo ku xisaabtami weydo arag sax ma janna hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halka iska dhigayeen janno marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno ninba nabiga u yimid oo yiri jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid ha janna doonaysa ha jannaan doonaya nabi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo ka raaliya timiday mise iyadoo safarkaaga aan raali ka ahayn ma iyadoo ooyaysan ka imiday markaa buu nabigu soo janno uma socotid ha hooyada ku noqo lugteeda qabso halka baad jannada ka gali doontaa adigu yahay ilzim rijlayha thumma aljanna bu nabigu thumma aljanna lugteeda qabso jannada halka baad ka gali taacada ilaahay markaad gudanayso waxaad soo dhigaysaa waa janno macsi markay naftiga shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yiraahdaan ilaahay caas oo dambiga samee oo waxa ku dhac markay naftiga shaydaanku ku yiraahdiin waa inaad soo dhigtaa ilaahay cadadiisa soo dhig inna batsha rabbika la shadid inna rabbaka labil mirsad ilaahay ku xisaabtin cadadiisa ka cabsi naftaada marka labadaas la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamaca cabsi iyo rajo cabsida goorma la rabaa waa intaad caafimaadka haysid ee nolosha haysid ee dhalinyarada aad tahay ee amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa rajiye markaas oo haquusan oo waxaad tiraahdaa naftaada waxaad ku tiraahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ihraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yiri labbayk allahumma labbayk
markaa dushiisaa laga leeyahay laa labbayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labbayk allaahuma labbayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa wuhi maad maqashay haa waan maqlay haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu yidhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar haliya markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labbayka walaa sacdayk baa layleeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa layleeyahay ee iska joog baa layleeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa balii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana balii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama ha lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anuu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteenu dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaan xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo 20 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labbayka wa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayey markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa mahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin caraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisa intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi uu fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagale ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamida ilaahow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nebigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucithtum muyasiriin bucithtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka layniima keenin buu rasuulku yidhi bictha walaqad bacahnaa fi kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula bictha kalimatu lbictha qur-aankay ku taallaa waa alfaadda ilaahay si gaara markuu uu tilmaamayo nebiyada
erayada nabiyadu ma loo adeegsan jiray ijtabaa istafaa iyo bictha waa kalimaadka nabiyada khaaska u ahaa laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu ku leeyahay inamaa bucithtum muyassiriina walam tubcathuu mucasiriin in kale maahine adduunka layniima soo saarin haddii layni soo saarayna rabbulciza wuxuu inii soo saaray inaad ummadda xaqa u dhibrisaan ee layniima soo saarin inaad ummadda markaad xaqa u gudbinaysaan aad ku adkaysaan ribciya bna caamir saxaabigii jaliilka ahaa rustum markuu u tegayna waa kii ku yidhi rustum allahu ibtacahanaa ilaykum annaka ilaahay baa nookii soo saaray buu ka yidhi war qofka muslimka walaalayaal muslimo waa inaad fahamtaa ilaahay baa ku soo saaray ilaahay baa ku doortay oo maxaa ilaahay kuu doortay diinta islaamka inaad ku dhaqanto ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada lagu keenay hadafkaaguna uu noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nebigu la mubaayicoonayay ansaar waxau nebigu ansaar ay ku wada ballameen baycat alcaqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah annagu waan ku qaadanaynaa bay ku yidhaahdeen madiinat almunawara waan kula tegaynaa sida naftayada cadowga aan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno ee reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tagno caalamkao dhan dadka ku nool ayaa dagaal lagu soo qaadi doonaa difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalahayagayna inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahe ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nebigu yihi ha ka yaabina buu yidhi halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigaygu rasuulku yidhi waa bayca erayadii ansaariyi nebiga dhex maray siraday ku taallaa addam alhadmu baa nebigu halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon buu rasuulku yidhi inaan maka ku soo noqdaa oo tolkayniga soo raacaa ha soo dhiganina buu yidhi ansaaray waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaan nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiiggiinnu ku daatana dhiiggaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona annaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi jannaa nii ballan qaadi janno maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibaya ma odhan waxau nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxau nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar wuu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka innakuna inaan diinteenna u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacaddo khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa waa waajib ku saaran oo ilaahay baa kugu addoonsaday inaad diintan shaqadeeda aad ka qayb qaadataa oo maalkaaga wakhtigaaga dhaqaalahaaga caqligaaga cilmigaaga wixii ilaahay salaaxiyad ku geliyey inaad diinta islaamka aad wax ka gashataa iyadana qiyaamaha waa lagu weydiin doonaayo ogow falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin baa ilaahay yidhi innahu ladikrun laka wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun in sha allah dhahada inaan diinta ka shaqeyno wada niyooda in sha allah
سفي عنو ده هذا ده هذا الصلاة الله وياه توحيدك لما ضل قاعد شيء ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلود يا لوضع بلود يا أفرت كعيشة بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا ما التعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل ويان منهج كان علمي قال نقول دقنا يا متون علم المتون علم المطولات مركز بالله قال ووسائل العلم وسائل الدعوة إمك آلات كان إمك نقضوا بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها يمديدنين لكن جماعة هنا بحضوا أو قرية جماعة كوب بحضوا أو قرية دتك أي برارجيان أو مقايد دتك أي وتجان أو دتك صلاة الله وياه أو تاريخ صلاة قعدت الله سوقبته ووسائل الدعوة بل تاسع أصل كيه ولبنا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آلات كان ما أنت نقول أنا سنين دعوة أوكاشنا إنه هذه آلات كان دعوة كف ديسو نبي محمد بالسين لها لكن نظام كان نبي محمد إلهي أوسيي والنظام كقولنا تجدوا إن مركب الدين في عالم كنا قاعد وانا نظام كي والنظام كوقف إنه الدالة إنه ها إن أدو قداشي أديك نقالة كابحو مال كابحو وقت كابحو ديك كابحو دعان كابحو نقالة كابحو ودن سيكتي هر واحد جعش هاي مركز الدين تقيمه هيجنا أتقرن ذاتك كلام الدين أتقيمه هو شيء كريم هل قصان نقصه قابل نبا وذي إنك يسود دمعين وجربوا امتحان وكقاضوا يقول أبو ده لباتن جربات هاي لباتن كاسنو وحنا دعونا إنسان إلهي أنا قوم بيسو ديبو بيلك نسينا يه ما أنت حبا ما هيو غيرك بهذي يريد حبا ما هيانه بل وحي ريكين بوكيني ما أنت أرض يسو حوك سو حيكين كاير وإنه هو ولي الشقة ما أركن الدنيا كما شقين هو يدي بوتوغو هو العقد ما الرباية يسيبو ليه مثلا $10 وهو معان ويسوس أرتوي سيسي أبيه بوي مدويل صوشة غيب وسكدي أبا واكن $10 هو ينسو دعاء وكقاضي وذاك مركا غرغره دبا هورتي صدب كبخايا بلبل مركاس وقادو اسغو arkay buu ku rido $10 bul kiyaraabo eego wax isbedel yar kiyara kuma iman hadana maalin dambe yiri bal maantana abaan ku sugaya duca qabatahay oo yadii buu tago oo bal wax yarsiyo maxay $5 uu keeno aabwa ma sha Allah fariid waaye isagoo arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan aad iga gurto halkeed geysaa wuxuu aabba igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno deeyo waxa shaqo ma garanay adigoo ma ka qaada markaabada dad muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi deen wax ku falayaaban moodaye gargara hortiisa dab ka baxyo buu ku tuuraa markaabada war lacag la gubaanigu ma haye orada aabaha u shaqo tago hay wareerinayga tag wariyaan المهم قال حابة قريس وراعي حابة ده سأل الله صقرا متعبا مصرحه وصقري وكاني العكتي وصوح له وكاني العكتي بو في قبل ليرو أبو مركبه لين عنه وكهيا العكتي مقتل هذا يقولوا إيه ورمحاجر يقول ما أنتو أبو العكتي هرد ويكدوا أنت هاي ما أنتو وكل كانه دبكة كده ديابو ومحل وقدا يا تيورا وصوني كبريما تيورا هو ينقص قادية لكن ما أنت أنا صوش قيسني ما فهمتين ما نملي دين شيء قيمه سواحد قرن مركب ديج يدعان يا وقت وكاغلو حداد وحبق قلين ما قرنش قيمه مركب دين تينا معان إلهي النسيي إلى شغدي تببركيga u baxno oo habeenka jimcaha markaska imanno oo masaajidana ma sha Allah dhalinyar badan oo khayr badan ba ka dadaalayay macallimiin iyo culimo badan in dadaalka diinada in kuna qaybteena ka qaadano wada niyooda insha Allah dambiga Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah